markii ay bixinayeen war-saxaafadeedkii ma ay wada dhammaystirin golaha ammaanku markii hadalka soo jeedinayay laakiin annaga aragtidayada saddex arrimood oo waaweyn ka soo baxay midda u horeysa waxyaala weligii shaki ku jiri jiray oo kala go'a Soomaaliya iyo laga hadli jiray ayaa waxaa caddaatay golaha ammaanka inuu ku celiyey oo uusan kala go'a Soomaaliya haba yaraatay ogolayn Soomaalida waa iska xan ku nool oo dowladda Ingiriiska weligeed leedahay wax la yiraahdaa waxbay cid la wadaayo waxaas arrintaas aad iyo aad baan waxaan uga mahadcelinaa gudoomiyaha shirka oo shirkana waday oo presidentiga meesha ka ahaa inuu hadalkiisa cadeeyay in Soomaaliya ay kala go'ay karin miis la soo wada fariisay maamulada ka jira iyadoo Somaliland ay ka mid tahay maamuladii la keenay meesha mid ka mid ah meesha la yimi inkastoo ay u dhammayn ay soo wada fariisan midnimada Soomaaliya ka soo baxday waxaa ka soo baxay in 20 August muddadii hadday kaga eg tahay transitionkii TFG-da in madaxweynihii iyo ra'iisul baarlamaankii labadaba la doorto waa ka soo baxay waxaa ka soo baxay arrinta Soomaaliyeed inay Soomaali leedahay cidda la dhageysanaya oo kaliya ka hadlaysa inay tahay Soomaali laga joojiyo gacan togaaleynta meelo badan ka socda saddexaas baan arrimood baan ugu dhigi lahaa inay saddex ka soo baxay tan ku saabsan Somaliland dan waxay ku leexdo hadalka aad sheegayso ma wax si rasmiya wada hadalkii ugu jiray ama wax wada hadal dad hoose ama si gaar u dhexmaray golaha laftigiisa ka yeedhay annagoo fadhina xubnihii golaha ka mid ahaa inay meesha ka sheegeen midnimada Soomaaliyeed inay tahay wax aan marna aan laga hadli karin inay tahay meesha laga jiitay